xisbiga kulmiye gobolka Gabiley ayaa soo kormeeray xafiisyada ku yaala magaalada Gabiley gudida kaambeynka oo uu hogaaminayo gudoomiyaha gudida kaambeynka gobolka Gabiley Cabdiweli Sheekh Cabdilaahi ayaa waxa uu warbixin ka dhageystay horjoogayaasha xafiisyadaasi xafiiska halka ka furan weeyaan wuxuu adag wala taageersan yahay Muuse si fiican aad baan ugu hambalyeynaa isagana miyuu jira leeyahay Muuse way taageersan yihiin aad iyo aad miyuu jira kala had lahayn dandhigta waxaan ku taageero iyo misaal waxaan ku filiyay ma sha Allah baan leeyahay saxaafada aad baan salaamaya madaxda baan u salaamayna aad baan mahadsantihiin konteen laakiin waad aragtaan oo anaga taageerada iyo misaal kalaba waxaan la toognaa maxay Muuse Raxiim maanta oo tahay maalintii afraad ee ololaha xisbiga kulmiye waxaanu kormeer ku soo marnay dhammaan xafiisyada degmada dadku waxay u soo baxeen si habsami leh taasoo muujinaysa sidii diyaarka ugu yihiin inay codkooga ugu deeqaan mujaahidka Musabiix Cabdi farxad bay noo tahay dhammaan reer Gabiley oo midaysan inay maanta diyaar u yihiin inay Muuse codeeyaan inta afraad wareegii afraad ee u soo baxay xisbiga kulmiye barnaamijkiisa oo si gaar ah loo habeeyay xafiisyada ay cududooda muujiyaan waxaan soo marnay dhammaan xafiisyadii degmadu ka koobnay waxaan si gaar ah halkan uga hambaleynayaa dhammaan dumarkii sida hagar la'aanta u muujiyay taageeradooda calaamadahoodii iyo astaamahoodii wanaagsanaa la sitay waxa leeyahay sida wanaagsan maanta aynu soo baxnay wadkana aynu sanduuqa ugu hubino balanteena waa mujaahid Musabiix Cabdi oo gobolka Gabiley cagaaran uu yahay gobolkii la doonayay gobolada insha Mukhtaar Nuux Ibraahim Honkey TV gobolka Gabiley